waxaa dhabarka iga toogatay gabar aan saaxiibo ahayn oon aad iyo aad iskugu kalsoonayn yaraanteenii ilaa weynaanteenii aan kasoo koraynay saaxiibo ayaan ahayn sidii maaragtay laba wada dhalatay oo kale ayaan saaxiibo oo ahayn waxaana deganayn dalka Kenya khaasatan Nairobi aniga guurkaygii markii la gaaray ee la isoo doontay ee arooskii la ii dhigayo waxaa la igaga dhigay malxisad ayay ii ahayd markii la ii galbiyeyna oo la ii geeyey gurigaygii dee waxa weeye guri kor iyo hoos ayaa la ii goglay oo aad u qurux badan waxaana uu ninka ka yimid Suudaan ayuu ka yimid xoogaa ayuu ka watay maasha Allah arooskaygii iyo ninka quruxdiisii iyo guriga quruxdiisii ayay aad ula dhacday Sacdiya ayaa aad ula dhacday kadib waxa ay sameysay intii ay toddobada iga bixinaysay ayay ninkii iyo ayadii wada sheekaysteen lambarna hoos lagu kala qortay markii hoos lagu kala qortay anigu maanan ogeyn kamana aan warqabin waxaa dhici doona muxuu ahayti dee labada qof markay wada hadlayaan ilma dhowrta maa la dhihi jira kulley micnaha qof kula nool oo maaragtay toddoba bixiina maaragtay kula joogto oo saaxiibadaada qaaliga ay tahay oo weliba gurigeenii ay ku nooleed gurigayagii ayay ku nooleyd waxaana ugu kalsoonaa sida hooyadii yaabahay gabar ila dhalatay oo kale muddana aan iskuul iyo dugsi wada dhigan jirnay runtii oo maaragtay qofka kale la kala goosan jiray wax kaste dhar hadday noqoto hadday lacag noqoto hadday raashin noqoto wax kasta ay noqoto micnaha kalsoonida heerka ay maraysa ma isku jecleen sidaan u ahayn dee xabadkan dee nin waa dhurwaaye nimanka qaar dee waxa weeye waa gob oo kuma dayaan dhimaashiyaal guriga ku nool iyo gabdhaha walaalahooda kuma dayaan laakiin haddii ay kugu fiiriyaan waa inaad yac iska tiraahdaa ee maahan inaad u qosashid alxaasil gabadhii ninka way u bagtay way isku bageen hoosta ayaa laga wada xiriiri jiray toddobadii markii aan ka baxnay anigii ninkayga oo maaragtay maalintii 8aad ayay waxay ku ballameen in asagina uu yiraahdo muxuu ahayti gabadhan maadaama ay toddobadii naga bixisay ha iska tagto oo guriga firaaqa ha noo noqdo si ani adiga aan iskugu soo harno labadeena keliya free abay helayna waxa ay tiri waa yahay laakiin gabadha waa walaashay waa saaxiibadeyda qaaliga oo dunida aan ugu jeclahay waxa saas lama taqaanin waa qamar gabar ila soo wadaagtay sheekada aniga maaha qamar ayaa waxay leedahay markii aan maaragtay aan leen labadooda waa ay soo heshiiyeen kadibna anigu daacad baan ahaa ninkii waxaan ku yiri gabadhan walaashay way iiga sokaysaa aniga ayada waxaan isku nahay uliya dir gurigaana kor iyo hoos waa uu weyn yahay dee meeshay doonto ayay ugu noolaanaysaa aniga adigana dee qaybtan ayaan ku noolaanaynaa mana is arkayno dee iyadaba way xishoonaysaa noomana soo gelayso wax dhibana dee ma balahan ninkii wuxuu yiri maya ma jirto waxaas muxuu ahayti aroos cusub aan nahay si aan kor iyo hoos guriga aan ugu digdiglayno ama aan ugu ciyaarno ama aan iskugu ceyrsano ama aan ku baashaarno dee waxa weeye indhaha hanaga yara qarsato mayay tiri gabadhii leen labadan way is ogiin inay baxdo ayuu rabaa kadib waxay samaysay shib bay ka tiri saaxiibadeed miyay dhigi kartaa guriga iyo baneen ninkeyga asaasirno maysan dhigin laakiin qofta ayada ahayd ayaa ula timid Sacdiya ayaa waxay tiri abaayo qamarey waxaan rabaa maadaama aan toddobadii ka bixiyay oo aan ku saacideeyo malxiis aan ku ahaa waxaan doonayaa inaan reeraheeni iyo gurigeeni aan qabto gabadhan runtii aad ay uga xumaatay inay ka tagto maysan rabin laakiin waxay tiri waaya abaayo waadna ku mahadsan tahay waxa ay samaysay dharkii yaryara ee maalintaas ay wadatay ee toddobada beri ay joogtay
boorsada yareed ayay ku ridatay dhacaa la siiyey labadooda marka waa isku soo haray ninkii markuu muddo joogay dee gabadhii uur ayay u yeelatay ninka iyo gabadha qaba qamar iyo sacdiya banaanka ayaa lagu ballamaa laguna sheekaystaa laguna baashaala awtina dhiin inta shoobin inta naanaa iga dheh wax kasta ma garateen marka waxa ay samaysay gabadhii sacdiya ahayd waxay tiri wuxuu ku yiri guur ayuu soo bandhigtay waxa ay tiri waayahay iga soo doono reerkii wuxuu yiri waan kaa doonanayaa laakiin waxaan kaa codsanayaa inaana aroos aana dhigan ee lacagta arooska aan ku siiyo si aysan u maqlin qamar ayadiina waayahay iyay tiri way ku aqbashay arooskii dee meherkun baa loo dhigay reerka keliya ah cid xaflad u dhigata aysan jirin cid guur u dhigata aysan jirin laakiin meher dhacay lacag fiicanna uu siiyey gurina soo gugla ayuu yiri nairobi waa la wada yaqaanaaye buruburi xaafad la dhaha ee shakshantiri ka xagga ah ayay guri khatara kasoo qabsatay gabadhan kaala arag waxaan ku iri muxuu ahayti igu qaatayaa malmaha hargabyar ay ahaay bas gabadhii gurigii markay soo sharaxatay dee reerkeedii gaariiro tagsiya way ogyiin gabadhan gabadha saaxiibadeeda ee weligeedii allaheed isla socdeen in maaragtay la qabo oo ninkan uu qabo reerka la turkooda maysa ka xishoonin gabadha waxay sameeyeen way maaragtay gabadhii aayar waa loo taksi gaari baa lagu qaaday gurigooda baa loo geeyey hilibkeedii wadkaceedii waa loo jar reerkina suuriya la iska siiyey laakiin gubgac iyo naanaa iga dha iyo midna ma jirin sidii iyadoo ah baa waxaan ku iri yaa ninkii baa wuxuu ugu sheekeeyey gabadhan markii uu gabadhan u mehersaday ilaan asagina waxaan rabaa inuu xagga oohido gabadhan ayuu wuxuu ugu sheekeeyey gabadhii oo ka horreysay gabadhan iyo wuxuu ugu sheekeeyey abbaayo maadaama aan shaqo aan ku lahaa suudaan oo layga sugayo dadkii oo dhanna lacagahoodii la isoo wada wacayo akoonkii maaragtaan u hayaa lacaga aamina iyo lacaga micnaha ayaan hayaa waxaan rabaa inaan sida ugu dhaqsiyaha badan aan ku laabto helena way ma tagaysaa waa walac waa ur aad iyo aad may u qurux badantaa weliba malxiisada gabadhaas kale ayaa aad uga qurux badan qamarta ayaa qurux badan waayahay bay tiri daf buu yiri dharkii yaraa ee u yaalay boorsadiisa ku gurtay kabihiisii naanaa iga dheh waa uu ordaye wuxuu la soo seexday uu la soo joogay gabadhi kale ayuu saas kula aqalkalay maalin maalmaha ka mida ileen dadku waa lasoo yaqaanaay xoogaa gabar ayaa waxay tiri gabar oo maaragtay u shaqayn jirtay qamar ayaa waxay tiri oo waa iska taqaan kenyaan gabar kenyaan ah ayaa waxay u shaqaynaysay qamar u shaqayn jirtay markay ka tagtay midaan ayaa waxay tiri imo wada koor naagtu way fiicantahay ma cafi kara xamal ay tiri way wacatay waxay tiri ha u sheegin gabadhan inuu ninka intuu u soo wareego waayahay tiri ana maxaa iga galay tiri lacagteeda qofka isiinaya aniga la joogaa naagtaasna way ugu kacday tiri way ceerisay sidii markay tiri waayahay bay tiri adiga naagtiina waa lagala wareegay reerka ama markay ceerisay taas u wareegatay naagta kenyaanka mayse sheegin shibba iska tiri maalmaha kamada ayadoo suuqa mareysa oo adeeg loo soo dirsaday ayaa gabar labada gabdhood isku taqaano ee Soomaali ah ayaa ka hor imaaday naagta kenyaanka oo gabadha shaqaaladu qamar oo ka tagtay oo taas aaday way isa salaameen marka gabadhan kale kenyaanka iyo gabadha Soomaalida hayeeseetan fiicanta waa la isweydaarsaday kadibna gabadhan waxay tiri maalmahan xagee ka dhacday tiri markaas waxay ku tiri waxaan ka dhacay gabadhii Sacdiye ahayd yaan u shaqeeyaa markaas waxay tiri Sacdiyadii qamar malxiisadu eedo la joogi jirto miyaha oo xagee degtay tiri markaas waxay tiri xaafadaasi degan tahay oo u tilmaantay waxayna tiri ninkii ilaa gabadhan sheegina la yirmoogta laakiin reerkan aqal xumadeeda reerkan ka qarinaysa laakiin gabadhan kale oo labada gabdhood isku taqaano ayay u sheegtay tiri ninkii oo qamar qabayna de gabadhaas uu guursadayo de ayadu la joogaa gabadha way aamin weysay way iyaabtay waxay tiri run ii sheeg waxay tiri kaal soo tusay tiri ka
kuma tusinaasay tiri lacag baan ku siinay adigoo ana isma tusinayee laakiin inaad been sheegaysay in kale ayaan ogaanayaa waayahay bay tiri waa la israacay abaayile indhashareeray qabtaa nairobi waa la yaqaan gabdhaha dhan indhashareeray qaataan dee meel yara oo luuqa ayay aayar u gashay abaayile albaabkii garaacday way ka furtay markay ka furtay dee waxaa ka furay ninkii ayaa ka furay oo macawis weyn wato saasay u fiirisay wax dariska gala inta iska dhigtay shareer wadatee bay saas u qoraarsatay way fiirisay way yaabtay way ka tagtay gabadhii ayadeed waxay u tagtay qamar waxay ku tiri qamarey see tahay ma fiicanta ii waran ninkaaga ah abaay wuu laabtayoo wuxuu aaday suudaan shaqadiisii iyo afaarihiisii iyo waxaasuu aadayoo dee wakaasaa aniguna walacbaan uur matag batabcaan baa laa maamaha waan xanuunsanaa ku fiir miyahaa walaaley sacdiyana xaggee ku dambeysay sacdiyo reerkoodii bay aadayoo way isoo wacwacdaayeen way fiican tahay tiri balaara khiyaanadeeda way soo wacda seeta abaayaa alaleeya asagana dee wuu wacayaayo waxaan ku iri wuxuu leey see tahay waayo lambarka maaragta whatsappka meel walbaa laga isticmaalaa kii suudaan wataa halow kii kale waa dansadaa halow baby naanaa iga dheh beesa lacagtay horgo ebelowa kuusoo diraan naanaa iga dheh yaa saasaa lagu wada joogaa labadoodan gabadhiiyo khiyaaneen muxuu qabaaba wax yar u qabaa gabadhaan bas gabadhi kale waxay tiri war lagu siiyey tiri sacdiyada iyo ninkaagaba waxay aroos ku yihiin xaafadda buruburi gabadhi way qaraaxantay waxay tiri beeley baa tahay kidaa ibley baa tahay naa ninka wuu tegay gabadhaana gabar walaashay iiga sokaysa xataa walaalnimo xitaa waa dhaafta ul iyo duura isku nahay tiri ani ayadana adduunka isku jecelnahay oo ninka hadduu xitaa ay isku soo qaabiso xataa dareen micnaha uma qaadayso si kasta hadday yeesho waayo aniga saa ugu kalsoonahay tiri ma aad malaysi kartid iga daa say tiri hataan ka warne kusoo tusiya tiri waayahay tiri indhashareeri xijaab waaweynaa la xirtay tagsiyaada qaatay naanaa iga dheh gabadhii oo qamar ahayd dee waxaa la yiri gargaraa xabadda albaabkan waaye aa lagu yiri no albaabkii gargaraacday yaa waaye heblaaye antii waa camala waxaa laska dhiga naagta kenya kiswahiliya kula hadashay aniga waaye tiri waxaan ahay muxuu ahayd kabarwo camal shaqaalana hore ugu joogo moogta marka albaab markay fakka siisay dee waxay tiri ninkii oo macawis weyn oo meeshaasaan u jiifo iyo sacdiyadii ayaa ka furtay qaraacan maa u dhiman qamarti waa suuxda dhag gabadha kala kusoo baxday dariska dadka gabadha maxaa ku dhacay naanaa iga dheh ninka suudaan aaday iyo naagta malxiiska u ahayd magaaladayba dhinaca aroos uga yihiinbo ma garateen marka saaxiibteed ayaa dhabarka ka toogatay gabadhii ayada ahayd waxay noqotay qof qafiifay oo waali ku dhawaaday waxay ka kacday waa haddaan ha guursadee muxuu u guursaday saaxiibaday ha guursatee aniga qof kale hadduu guursan lahaa saan iima xanuuneed laakiin gabar walaashee ku kalsoona oohinay gashay qaraacanay gashay hadda meesha oohin maayaan qaraacan maayaan waxa maayaan goorey xeer iyo fandhaal kala dhaceen gabadha weyneed waaliyay ku dhawaatay ninkii waxay tiri reerkeeda u tagtay way carootay waxay tiri halaga furo gabadhii aan walaalnimada usoo dhawaysto malxiisadii ahayd ee yaraanteedii ee weligan yaan lahayn aan faraantiga isku ahayn ayaa ninka guursatay sidii markii la maqlay reerku way caroodeen ayadii way xanaaqday hallay furo furiin ay soo istaagtay qamar waxay tiri ama aniga ama saaxiibta jinniyood ee guryaha maaragta ee muxuu ahayd aan la gashay muska aniga ayada loo dooro adaan ku furayaa dha saaxiib uureyna leeda adaan ku furayaa gabadhaasaana jecla ayadaana la noolaanaya miyahaa quruxina waxba tarina idin sheegaya ku fura bartii waraaqda gabadhi way ku dhufatay waxay siin weysay ninka saa ogeyd u guursaday jaceyl beena la dhisaay waxaan ku iri gabadhan saaxiibada se u jecleed isay gurigeeda ugu soo dhaweysay isay iyada leh walaal uga dhigatay isay dhabarka ugu toogatay marka naagaha qaar saaxiib ma galaan saaxiib daaban ugu jira oo ilaahay ka baqo oo dadka ka xishooda oo qof wuxuu walaalkiis u quurin ama asaga isku quurin oo quurinin laakiin qaar waxaa jira dameera ah naagaha qaar aan ka wadaa iskuma darsano dadka laakiin qalbiyada hadii yaa marka adiga dee gabar walaasha oo maaragtay naanaa isla soo ahaan jirteen oo isla soo yareedeen isku ceesh aheedeen isku dhar xira jirteen kale laab isku aheedeen ninkeeda soo hawo kaaga anigu waa la yaab alxaasil qamar xoogaha way qafiiftay way shoogtay sacdiyana saasa u jiiftaan ku iri
raaxa u jiiftaa yaa ma nin bay magaalada kasoo weysay ma nin la-aanaa beledka ka jiro waa iyo gabadhan walaasheeda saaxiibadeeda oo qaaliga ee dhabarka uga toogata gabadhaas la fur wiil bay dhashay wiilkeedii wallaahi iyadoo maaragtay isla hadlayso oo isla sheekaysanayso oo waxaan ku irdee way kala tahay naxdin maxay ka qaatay saaxiibadeed oo ninka ka qaadatay misena say ku eeday ugu kalsooneed iyo sida loo siray suudaana aada anigana tadooda kaa bixi naa iga dhow iska tegaya magaalada geeskeeda dhac marka walaalayaal gabadhaas waa ka xumahay abaayo waxaan ku iri qisada ila soo wadaagtay dee halkaan ma kooda dhammaysti karo ma garateen walaalayaal xataa markii ay ninka kala tageen oo cunugii ay dhashay xataa yaa biilkii uu siin jiray wixii dhan wuu ka goostay taasuu u go-ay ma garateen wiilkii reerkoodii micnaha ayada reerkeedii yaa isku haysta ayadana xoogaa way yara shugsan tahay ma garatay qalbi jabkii niy jabkii ay ka qaaday ninoo dhan lama hadasho waxay ku leedahay ninba hadduu isoo ag mara qayaanoole leeleeyahay gabar saaxiib lama ahan cid ay saaxiib la tahan malaha markaan waxaa iri ilaahaygaada la saaxiib ilaahay istaaqfurlayska badso waxaas dhan way kaa maarad kaa masaxmayaan marka ma fiicno gabdhaha walaalahooda oo saaxiibadooda inay dhabarka ka toogtaan wax ka xun maaha ma garateen walaalayaal halkaasaa kusoo gabagabeynayaa waa hee ibbaad official waanayna salaamayaa naanaa ka siiya subscribe-ka share gareeya like gareeya comment gareeya dhac ka siiya ma fahanteen وأنا جعلها قريلا سبسكرايب إيصار ماتنتين أنت إيصار دون كذلك إذا كانوا ماتنتين وحنا كنا لا جنا وكم ماتنتين نانا كسي أشير جري